بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. waxaan salaamayaa dadka ummadda Soomaaliyeed halkan naga daawanaysa maanta. waxa aan ku bilaabayaa waa sanadkii cusbaa ee aan ku jirno maanta bishii labaad shanteedii. waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaalihii awalan ka hadli jiray. waa maalintii aan hore ugu bixinay wasiirkaaga maaliyadda la kulan waxna weydii sidaa daraadeed ayaa baada saxaafaddu halkan isugu yimaadeen maanta in halkan waxaan ka odhanayaa inaan ka idhaahdo inaan sanadkii hore wax ka taabto sanadkan soo socda isagana aan wax ka taabto iyo waxa malaha iyagu yahay inaan wax ka taabto intaa kadibna wixii su'aalay ahaysaan waa soo koobtaan aan idinka jawaabo. waxaan ku bilaabayaa waxa weeye sanadkii hore dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa sanad wanaagsan buu ahaa. anigu dhinaca maaliyadda baan ka hadli karaa aanan u xil saaranahay. sanad wanaagsan buu ahaa laakiin ka badbadin maayo. wuxuuna sheegayaa waxa weeye waxay noo qabsoomay. waxa kale oo sheegayaa waxyaalo fara badan oo inoo harsan oo loo baahan yahay inaan gacmaha iska qabsano. dalka inaga iskale inagaana xilku ina saaran yahay inuu halku taagan yahay hore uga sii wado meesha ku jirana ka soo saar. sanadka ina dhaafay ee 2017 waxaan odhan karaa waxyaalo badan baa inoo qabsoomay. wax ka badana waa qaban kari lahayn laakiin dadaal baa la muujiyey. sanadkaasi waxa ina hagayay oo ina hogaaminayay runtu waxay tahay waxa weeye aragtida madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaruhu ay u dhigeen oo ah mid daahfuraan iyo isku filaansho iyo isku tashi ah. mid ah in annaga waxaan u taaganahay tahay in la nagu kalsoonaado. يعني wax walo aad wadaba kalsoonida ayaa kowka dadku inay wax wada qabsadaan. qofkaad wax la qabsanayso wax ma ku aamini kartaa baa meesha ku jirta. waxa aan ka bilownay madaxweynuhu ka bilaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerka ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxa weeyaan anaga xaggayaga wala na aaminaya taas horta ya anaga noo amxuha hal muciidka taasaan waa iyadoo ay tahay maamulka maaliyadeed sanadka waxa noo qabsoomay waxa kamid ah horta inaan wixii la nooga baahnaa ee geedi socodka deyn dhaafka deyn cafiska wixii la nooga baahnaa oo ah lacag inta leeg inaan idinka soo ururino waa noo keentaan waa cashuur ah inaan taa gaadhnay baa wax lagu faani karo. waxa la inooga baahnaa laguna heshiiyey waxay ahayd inaan soo ururino lacag gaadha 137 milyan marka laga soo bilaabo sanadka bilowgiisii 2017 ilaa December 31 anagu markaa waxaan gaadhnay in inta ka badan ilaa 5 milyan dhaaftay 140 milyan ayaan gaarsiinay. taa inaan gaadhnay waxa weeye waxyaalaha u sheegay beesha caalamka in wixii aan idhaa waan samayn karayna arrin weyn arrintaas in la idhaa nimankani waxay yidhahdeen waan samaynaynaa way sameeyeen wixii lagu heshiiyey way guteen inay yidhaahdaan ayaa mid ahayd. si taa loo guto waxyaalo fara badan oo iyaguna ahaa geedi socodka laftiisa ayaa noo qabsoomay. waxa la wixii aan dawladda ahayn ee lacaga ururin jiray dawladda u ururin jiray inay dawladdu ku soo wareegto kambaniyadii qaadi jiray transmitteraalaha kambaniyadii qaadi jiray waxaan la shaabadeeyo notriga la yiraahdo kambaniyadii shatiyada qaadi jiray kala wada goongoonida ahaa
waxaasoo dhanba inay inagu la soo wareegno dowladnimaday ka mid tahay waana inoo suuro gashay waxaan filayaa maanta inaanay jirin kambaniyo fara badan ama hay-ada khaas oo fara badan hadday jiraanba oo lacag qaada inay jiraan u malayn maayo waxaan ku guulaysanay markaa taas inaan samayno waxaan ku guulaysanay sanadkaa inaa naga caawisaan in shaqaalaha dowladda u shaqeeya account yeeshaan magacooda la ogaado halkay joogaan la ogaado halkay shaqeeyaan la ogaado ayaa noo suuro gashay waxaa noo suuro gashay inaan joojino in kiish lacag lagu qaado oo dabeetana xafiis lala tago oo dabeetana dadka loo qaybiyo malihiyaanu waxbaa jira xumaan laakiin kullaba haddii kiish lacag lagu qaado waqtigaa waa lasoo dhaafay electronic in lagu biyo weeye qof walba oo shaqaystaba isaga wixiisa leh si asturan in accountka looga bedelo kayaga koogana uu ku dhaco ayaa adduun ku shaqeeyaa sida adduunyada kale taas ayaa noo suuro gashay waxaa noo suuro gashay in wax waloo la samaynayaba systemka la soo geliyo oo wasaaradda heblaaya marka ay doonayso ama hay-ad heblaaya markay doonayso inay wax samayso inay halkooda computer ka soo geliyaan wax la qaadqaadaa jirin halka iyaga aanu ka aragno qofkii magaciisa la noo sheegay halka qofkii wax iibsaday sidii loo iibsaday habkii loo iibsaday inta halkaa la soo geliyo la isla wada arko wuxuu ay noqdaan auditable waxaa la yidhaahdo la raaci karo raadraac leh habkii loogu talagalay leh ayaa noo suuro gashay waxaa noo suuro gashay qof dowladdan u shaqeeya oo la ogyahay inuu shaqeeyo inaanu mushaare la-aan ku shaqayn sideed qofka uga fili kartaa inuu wax soo saaro markaanu mushaare qaado dhibaato weyn bay tahay marka way noo suuro gashay in dadkaa shaqaalaha lacagahoodii la siiyo waxaa noo suuro gashay sidaan kula heshiina IMF-ka hay-adda lacagta ee adduunka waxaa noo suuro gashay inaan waxba la nagu yeelan laba arrimood baa ugu waaweyn geedi socodka deen cafiska midi waxa weeye nimayo jeebkiinu ha idinku filaado haddaanu idinku filayna aan aragno idinkoo isku dayaya in jeebkiinu idinku filaado idinkoo cararayaan idin aragno oo daalan oo xiiqsan oo yaa doonaya in arrintaasi aad ka midha dhalisaan haddaa markaa aan aragnay inaad ka midha dhalisaan gaari weydaan waa idin caawinaynaa laakiin iska fadhiisataan tiraan lacag lana siiyo waa damacdaan annagu dadka iyaga inaan idinka soo guro kama soo guri karno ayaa meesha ku jirta markaa taas ayaan xaqiijinay in aan qaban karayno lacagaha laynagu leeyahay in laynaga dhaafo ayaa sidaa daraaddeed geedigeedii inaan ku dhacnay la isla garto eeg innagu waddan afrikaana waa 54 waddan ee afrika ka mid ah ayaan nahay waddan la yaqaano waxa gudihiisa ku jira iyo waxa badiisa ku jira ayaan nahay waddan halku ku yaala ay tahay strategic ayaan la isla wada garanayo sidaa daraaddeed waddan dad badani danaynayaan ama afrika ku dhex jiraan ama dibadda ha joogaane ay danaynayaan ayaan nahay adduunka zero sum game baa la yidhaahay cid waliba siba inoo danaynaysa cid walibana danteeday wadata marka inagu teenii aan ka seexanay inaan u soo jeedsanay aan u soo jeedsanay sida madaxweynaha iyo prime ministerkuba ay inagu hagayaan ayaa la dareensaya adduunku dareensaya bishii December waxaad ogtihiin dadyo Soomaaliyeed 8 ilaa 13 waxaa lagu shirayay magaalada Nairobi oo dad badan isugu yimaadeen international community isku yimi banka adduunku yimi laakiin hormoodu ka yahay hay'adda lacagta caalamka iyo hormood ka ahayd caadadu sida ay tahay wasiirku shirarka noocaas oo kala maalinta ugu dambaysa ayuu tagaa anigu bishii 8 baan tegay bishii 8 ilaa 13 wax wal oo la isla gorfeynayaba waan la joog waxay taasi muujisay waxa weeye dadkii meesha joogay ee madaxda dawladda dalalka ahaa inaanu isaf garanno wax walba isla af garanno oo deeg waxyaalo badan oo aanay ogeyn baa jireen aan u sharaxo waxaan ogeyn waddankan halkuu marayaan u sharaxo halkuu ka yimid aan u sharaxo mentality-ga dadka Soomaaliyeed halkay wax marayaan u sharaxo dhibaatooyinka haysta iyo magaranaysa aan u sharaxo halkan soo maray oo dhan iyo waxaan sameynayno aan u sharaxo waxaan isla garanay markaa waxaad idinku wajiraad ku aragteen ay soo saareen ay yiraahdeen yes Soomaalida waa lagu kalsoonaan karaya waxaan ka doonaynaa ugu weynina taas ahayd
eeg dalalka يعني دين كمله إنه يجا دين نقوله إنه دين كمله مركا إنه وحنا سيان إنه نسين يجا وطالع لكن إنه وح النظر إنه وح يضد يوسف ماليات إلا إذا هذا ضد كان هو ضد جراء أو تشنية أو وحده إسكاب حين أو كل حساب تمي كروه هالكامر كيسوف فريستان هالكافر ديدو كل حساب تمي يا أو وحون يوحون ناس كلا أنت أصوبا إنه نظر أما وحين سيان أما يسكت ديان وأنا وشجعانه يا أما وحين سيان أما يانا نسيني لكن حقيقة وحي تأدون كويس كود حرية أيوه هذا كسب بحده أيقون تهذا ولا عارفين ضد أدوك كود حرن وضد كسب ما هذا هو صدعة ضد بدن ما ندنوه ضد بدن ووضن لكن مركل السكود جيو ضد كانوا استروقع أيا دن وضد وينها أدون كجوا أيا دن وصادر عديد وحان قبلني وحياله وين أي نقدين waxa marka aan geedi socodkeeda ku jiraa maanta deynta in la inaga cafiyo naaw deynta oo la inaga cafiyo waxyaalo badan baa ka horeeya waxa ka horeeya inagu nidaamkeena inaan sii wadno waxa ka horeeya inaan isku filaan inaan gaarino ku tala jiro taladeedana hayno waxa ka horeeya qof walba Soomaaliyeed wuxuu ku tari kara dalkan inuu jeebka gacanta galiyo ku taro ayaa ka horeysa taa markaan gaadhno waxay noqonaysaa markaa دينتي اللي نجح فيه وحكى لك الرئي وحويه هذا وضد عسى ugu joogtaan shirar kan imkaan idin sheegay ka dhacaya bisha 8deeda iyo bisha 12geeda Washington waxa ka soo baxaya wax positive oo wanaagsan ba ka soo baxaya oo oranaya intaan deyn afis gabal gaadhin nimanka lacag loo furo ya intaan deyn afis gabal gaadhin lacag loo furo ayaa meesha ka horeeyay sida prime minister ku sheego oo idin sheegay maali dhaweyd deynta in la inaga cafiyo waxa ka horeeya arrangement waxa la yiraahdo adduunyada kala loo sameeyo hadda nidaamkaaga wanaagsanaado in la sameeyo ayaa ka horeysa oo lacago laynoo soo daayo lacagaasi deyn ma aha waa lacaga deeqa ah tan lagu sii noolaado ee lagu sii anbaqaado waxaad sameeynaysi taas baa kamid ah marka sanadkaas marka sanad wanaagsan oo mudan in la xuso ayuha waxyaalo badan oo kale waad arkaysaan oo dhibaatooyin haysta laakiin sidaan u socono hadii loo socdo أنا وحفيد وحوي على 110 bilood ee soo socda in wax wanaagsan la gaari doono wax waliba hagaagi doona wax waliba hagaagi doona macnaheedu yahay inaan isku filaasha inagu aan doonayno marba heer bay taagan tahay ya aan gaari doono waxa idin gelayaa marka sanadkan imika waxaan ku tala jiro sanadkan 2018 oo maanta shantii bishii labaad shanteedii aan ku jirno waxa aan doonaynaa inaan sii wadno geedi socodka cafinta deynta دين عفسك إن سيودنا وحاوجه الريانة وحوي شيبك قاعد تجريه ده كينا مشاريع سبحية إذا كينا مشاريع سبحية إذا كينا منتدي سبحية إذا كينا جوارد الراعيان بحية يا لايرك إيه إلكتريسيتي لايرك إيه بيها حفيسيدنا إسكاب بحية هذا ولي ما ينقارين هو ده لسه أيوه يسكول ده لسه أيوه تذكر شغالية أيوه إيه هذا جامعة دينا لسه أيوه وحياله ما الجشيء اللي جوه سميني الديفلوبمنت كهرو مركز كل شغلها وليش لما ينقل وحوي بيرت هذا إنترنت جاري هذا وحصل صار كقصة سمين جاري استعارة سوما جاري هذا نتقاس وين مسؤول هذا ندرول في جوجل مسؤول درول هذا مشارس سنو سوق عين مسؤول قول المال دو شيء وحن كشرنا به والجاري مستارك الرواية مسك جاري أيان قاس كيس فيل كيس أدورنا الدنيا كله गाड़ी ये बार नगर कास ले अतः पैर टीवी इसलिए गाड़ी ये बार नगर कास ले वो हंगास इसना नसीब मौड़ा करना अदर उधर बोल के मुशारा सी बैठ है ये मौड़ा करना हाथ ना बैठती मिडी है ये सी मौड़ा करना वो हर बम्मा इसे बा इलाही बांध को डरी मरका वो हंग कुछ ले चिरा मरका वो हवाई إن عن جيد صعد كاودنا وعن جيب كعن تجرينه قفنا وح أذك لو يدين معي يا وحن ويديننا وحوي وحير وانا دي شيء يقولون شرحات هذا هل كم كويا يا سنة كصوص عدا بجت كيسي وينو كوال هذا أما ميزانية دي سوان كوال هذا ميزانية ولا بنوع عوية لا بدين عوية لأن أنا وحي كسوق علي لأن أنا وكاب حيوي لا بدا سين يسكن ميزانية ذن أي ميزانية لو يريد دوا كلمة عربية ده وحنو هل الدنيا دي لهاي هذا أب سومالي بينو هل الدنيا خرج كي نقبحها وحوي عيدا عيدا مضى أنا راهو
kala duwan mushaharkooda cuntadooda iyo hawlgalkooda waa 6 milyan bishii ma iska bixin karaynaa talo mise dadkan weydiisana waa 6 milyan bishii waxa ku xiga mushaharka shaqaalaha iyo gunooyinkooda ayaguna waa 6 milyan ya 12 milyan soo ma waxa ku xiga socodsiinta hawlaha dawladda waxa kamida waxa kuwa ku jira leedarka iyo biyaha iyo waraaqaha iyo kombiyuutarada iyo arrimaha dawladdu ku shaqeyso iyo fuelka muxuu gaaska dawladdu ku shaqeyso ya ayaa kamida waxa soo dhan marka la isku soo wada geeyo waxa weeye ilaa 16 milyan weeye ilaa 16 milyan weeye markaad ku darto waxyaalaha kale iska iman kara dawladdu leedahay ilaa dawladdu way mug weyn tahay iska iman kara oo qarax ka mid yahay ilaahay nooma keenay oo martib badan oo idin timid ka mid tahay oo madaxweynaha iyo dad fara badan oo dhowr jeer meel taga ka mid yihiin waxa soo dhan marka isku wada geeyo waxaan u baahnaa ilaa 20 milyan inaan bishii helo ilaa 20 milyan okay 19 badhe ya maanta waxayna soo galaa waa ilaa 12 milyan bishii ya ilaa 12 milyan dekada iyo airportka iyo meelaha kale inaga soo galay laakiin dekada iyo airportku waliba dekada ugu badan tahay ayaana soo galay 8-9-10 milyan ee kale cid baa ku darta now cidda ku darta hadaanay ku darin balada waxa dhici karay of course waan soo gudubnay mar baa jirtay intaaba inaan haynino aan 7 milyan haynay ama 6 milyan haynay ama 5 milyan haynay waan soo gudubnay maanta 12 iyo bar 12 ma gaarsiin karna iyadoo waxba effort kale la gelin inta la wado in la wado daldaloladana la joojiyo ya biyaha meelaha dhexda ka daadanaya dhiiga la joojiyo ilaa 12 marka 8 milyan ilaa meel kale ka helay tahay si aanu bixinay waxaan sheegay intaynaan u gaarin maalgashi 8 milyan sanadkiina soo dhaafay waxayna siiyay Saudi Arabia ayayna siisay Turkiguna barbiyna siiyay sida daraadeed baa wax wal oo loo baahnaaba loo bixiyay halkii dakhligeena laga doonayna aan soo gaadhnay marka waxbana la inoo ma yeelan wixii hore la inoo wax yar baan ka bixinay ya waxbana la inoo ma yeelan dakhligii loo baahnaa halkii miyiga iska yaala tahay sidaan wada ahaan jirnay eegada waad awrkaaga leedahay oo alaabtaada iyo caruurtaada wax walba qaado arigaagana leedahay cuntadaada iyo arigaaga adiga iska leh marka doonayso neefkaas magaalada geyn waxbaad soo iibin eegada dawlad miyaad u baahan tahay markaasoo kale markii sidaa la wada ahaa jaarkaaga inaad wax badan la qabsataa ma jiraan adaa isku filan inaad dad kale wax la qabsataan waxaa imanaysaa marka cidi dibadda intii niyarada meelahan taaltaalay lagu soo duulo tawaryaada wala nagu soo ama waraababa gamta xooluhu joogsada maxaan samaynaa mar haday timaado cashuur baa imanaysa war maxaan samayn mar hadaa dad kale meel soo galaan cashuur baa imanaysa ya marka waxaan samaynaynaa nimayo waraaba gamta inoo joogsaday yareerkeeni ma aan yareerka isku keeno mid baa qoran oo laba inan maaleena laba habloode okay daadna gabadhaadu arigayga ha raacdo boor inankayga dagaal ku galiya wax la wada qabsaday way waa cashuurta kamid ah waraduna ma ninkii xoolaha badnaa neef inoo soo iibi adna inama maliyidi hablotoone neef soo iibi waa cashuurta waa halka weyn aan ismaamul way cashuurta haddaad cashuur keeni wada isma maamuli kartid waxa idinka dhaxeeyana ma samayn kartaa marka cashuurtu waxa weeye wax dadweynuhu damceen inay wax ku qabsadaan way dhibaatada waxay tahay marka dadweynaha laga qaado waxna lagu qabo way ya dadkan Soomaaliyeed ee madaxda aan nahay anagu dawladdu dadka qortay oo yiri war shaqada aan isku aqbalay anagu isku waafaqnay noogu qabto noo qabto leeyahay mushaharana loo qoray way dadka ka sareeyo oo dad la qortay bariina soconaya hadii wixii qabanayaan dadku way isku imanayaan waxa oranayaan waa dhageyso waxaan doonayay waa qaban weydi hadii bilaquma yihiin naga tag bay oran marka horta cashuurtu waa taa way marka annaga mas'uuliyadiisa saan hoodan ku sheegay hormoodna noogu yiri madaxdayadu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu diyaar waxaan u nahay xisaab ilaa xisaabiyo anigu soo ma yihiin ninkii qasnada qaabilsana diyaar waxaan u nahay maalintii la doono meel walba la igu yeero laaniyo lacagta bal ka war taa kala bal ka war tii Sacuudiga ka war
السعودية إن سيها هذا دونتان دبق عشان هالكي كبح هذا ولا شيء ولا سوقري ميل ولا سوقلي وحكي يلا IMF كانوا ويوجي عدو اللي بيوجد ما أنت كي يلا يوحي الاستعمالي هالك لو استعمالي عدة يكون بعض everything وقدر أيام مدحوين وقرأ وقام هذا نقيه سعودية هالكي كبح هذا الشيء جيو يا يعني وحنو ملاينا يا إني وحنا نحسنتين أنا ليش أقول العقد بدك كتير مع دون أكاونت سوق اللي مجد يا أكاونت سينجل أكاونت كريشري وليه هي سوق شهر كانوا ويكبحض مركا واحد دبي جلي كرم ويا مركا واحد يشجع يا مركا واحد يكبح هنا مركا عشوره قادستا أيام بلا بينا السي عشورها لو قالوا dadka badan ee ku shaqada leh khayr Allah siiye gidigood waa la kulanay sida aan idin la hadlayaan wada hadalay qolo walba waxaan inamayo maxaa kari kartaan eeg marka dadku sida aan idin sheegay oo shiraan ayaan waxda qabsano wixii lagu qabsanay meel la isla dhigo dad arintii ka shaqeeya loo doortaa dadkaas ee dawlad loogu magacaabo dadka amar waxa lagu siiyaa dadka inay qaadaan cashuurta iyo dad dawlad amar ku siiya bariya maaha وما كويشين ها سوقات بالله قانون كبا لا سميا قانون كبا iyagu ansixiyaan barbariya ma jirto laakiin nagu waa liidinay wax walba bariya weeyeen ya iyagu wax walba bariya in kasto qaanuun ku leeyahay dadweynuhu waxay garteen in inta qofkaas bixiye kaasna inta bixiye waa la gartay qaanuunka ku taala laakiin inagu waan liidinayo wax walba bariyo yahay marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shiro inaan qolada electricity-ga iyo leerka iyo biyaha iibsa la shiro inaan qolada cable-ka soo gelisa television-ka la shiro inaan qolada biya xawaaladaha la shiro baanaka la shiro inaan qolada qaadka ku shaqada la shiro qolo wal oo wax ku shaqada la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo oo aan isla fahamno horta waxaan doonaynaa wuxuu yahay dadku sas bay wada qabaan inaan saska ka saaro yaa doonaynaa anagu saska inaan ka saaro waxaan halkii gelayaa aanu sheego sida dalkan uu soo kabanayaan aanu sheego inay wax nagala qabtaan aanu sheego waxa kale oo aanu sheegnay waxa la bixinayo inaaban isla maamulaba nimayo xafiiskayga dhinac ka soo fadhiista waan isla maamulaynaaba ya maalin walba maalintu markay sii dhamaanayso aan ka wada hadalay kabtan igu yimaad oo maanta maxay soo galay waan ku sheegi halkay ku socotaa halkan ku sheegi aduu dadka u sheegay doonayso ama aan wada sheegay waxaan wada leenahay inuu yahay waxa wada maamulayna inuu yahay inaan iska diidno inaan dad kale wax weydiisano mar walba oo qof walba aniga iyo adiga iyo qof walba wax laga qaado ka telefoonka diraya wax laga qaado ka wax soo xawilaya wax laga qaado ka shaaha cabaya wax laga qaado ka gaariga raacaya labada gambo bixin wax laga qaado dalalku saasi ku nool yihiin dhaqaalaheenu maanta marka la qiyaaso waa 7 bilyan weeyaan dhaqaalaheenu cashuurtan dhaqaalahay ku xidhan tahay 7 bilyan now wadanada inagu xiga cashuurahooda waa naqaanaa 7 bilyan baa lagu dhufanayaa 13 14 15 maxay noqonaysaa marka 1 bilyan bay noqon 1 bilyan 13 baa lagu dhufanayaa wax laga ka soo ururiyay 13 saad oo qaybiyo 13 lagu dhufay 7 bilyan adigu waad garan kartaa 1 bilyan baa ka soo baxay inaguna marka waxaan kari laanahay 140 milyan soo saar kawar 140 milyan in soo saar oo qof walba leeyahay anigu waxa ma haye halka marka waxaan isla garanay in waxaan dadkana dhibay dhaqaalaheennuna waan arkaynaayo dad fara badan oo waxa jira abaarana way jiraan dhibaatooyin kalena way jiraan oo wadanada ugu faqirsan ma ku jirnaa inkastoo dhaqaalaha marka la isla wada eego waxa badan u yahay 7 bilyan waxa maaha wadankeena kala khayraadka wadankeenu leeyahay badda uu leeyahay inta uu leeyahay 13 milyan ama ka badan dhaqaalaha 7 bilyan is nothing for one waxa weeye wali qiyaastii baan la isla wada gaadhin oo meel walba waan la gaadhin meel walba sample la qaado intaas ma loo maleeyo mala awal midka labaadna waa kala xirxiranayo waa la isku furfuray dhaqaalaheenu 7 bilyan iyo 20 bilyan waxa uu ka badan yahay dhaqaalaha dalka soo gala sidoo tahayba waxaan u baahanahay inaan wax iska ururino marka maanta hadii ilaahay ilaahdo waxaan bilaabaynaa ma waxaan si habaysan u qaadayna cashuurtii gadista yaan doonaynaa bilowno hoteelada waan ku bilownay waa aragteen qofku markuu koob shaaha cab wax yar baa la noogu daray nimankaasi khayr Allah siiyo si fiican ayaa arintaa wadaan wixii ka soo baxana marka dama halkan isku nimaado
ayaan idin sheegayaa qolooyinka aan la hadalay oo dhan waxa naga dhaxeeya waxa weeyaan waxay qaban karaan ee Soomaalinimo patriotism ya inay qabtaan ayaa naga go'an tahay maanta United Nationska qolada la yiraahdo European Unionka Afrikaanka baananka international community-ga cid aan Soomaaliya u taagnayn ma jirto oo aan doonayna wax la qabato leena waxay leeyihiin waa soo toosay nimankii inaguna wax la qaban waa sky is the limit wax la yiraahdo sky is the limit waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo wax walba nimanka in la qabto haday saa ku socdaan marka inaga teeni ba hadhay waxaan doonayaa inaan halkan idinku hayaa waxyaalaha aan doonayna for example waxaan doonaynaa wixii soo degada ka soo dega anaga oo ogsoon in dekada kala jiraan anigoo ogsoon in cilaaqaad wanaagsan naga dhaxeeyo wasiirada kale ee ka shaqeeya muxuu ahaa gobolada cilaaqaad wanaagsan naga dhaxeeyo anaga oo ka shaqeyna in la mideeyo cashuuraha oo dhan halkeedana ku socono anigoo ogsoon in badan ka wada hadalay in yarna ula jirna khayraadka oo dhan inaan isla garanno sidii loo qaybin lahaa ilaa dalka inaga leh waa wada leenahay wax walo meel ka soo baxaba waxaan isla garanay waxa in halkan soo dhigo waa intan yaale Soomaaliya yaale halkan kala yaale waxa badda ku jiray wax bari ku jira halka la soo dhigo dalka Soomaaliyeedna loo qaybiyo ya dalka Soomaaliyeedna loo qaybiyo looguna qaybiyo hab la isla gartay ya hab la isla gartay loogu qaybiyo anagoo taa ogsoon maanta waxaan soo rogaynaa waxa weeyaan cashuurihii la habeeyo dib loo habeeyo now cashuurta gadista ee sharcigeena ku samaysani waa boqolkiiba 5 weey waxaad soo iibisay adeerow shaarka $22 ama $20 boqolkiiba 5 baad igu dari waa dollar baan u marinayaa adeerow marka dollarka ninka ka iibsanaya ayaa bixinaya maanta koobka shaahad cabaysan ninka ka iibsanaya bixinaya adiga waxaan ka rabaa waxa weey inaad lacagta ay ururiso habkaadii ururilahayd waa isla garanayna marka alaabaha waxa badan ee soo dega waxaan idhi wixii haduu yahay $8,000 oo lacagtina way soo socotaa Soomaali dollar daba maqli maysid Soomaali shilin baa imanay dhawaan markaan ka wada hadal doono dollar dambe la maqlaya ma jiri doona hadii la yiraahdo sida maluhu yahay wixii $8,000 haddaan ku dhufano muxuu ahaa 5 waad garan kartaa intuu noqon karo waxaan doonaynaa inaan inta ku dhufano teemka waa la iska wada taag daran yahay inaan idhaa haddii 8,000 ahaa aan ka soo qaado 800 inuu yahay 800 ayaa 5 ku dhufanayna eega double difference ku dhaxayso maaragtay intaas saabad naga badan imika waxaan doonaynaa intaas saabad imika naga badan 8,000 waxa ahaa $8 naga siyaado waxaas wax weyn la isweydiinaya 8,000 waxa soo siisay $8 naga sii waxaan maanta sameynaa waxa weey waxaan uga digayaa dadka wada xuma tashiilka in kaarta qaba ya dalkan Soomaaliyeed ciidana uma qodna ciidana uma maqnay adiga leh war xuma tashiilka in ka jooji waxaan idin sheegayaa dhaba 8,000 wax laga soo iibiyay $8 baan weydiisanay haday taas xaraan tahay ninkii xaraan hayso oo ii sheeganaga ya wallahi iyo bilaay tala dalkan in joogteen inaan dad haysta xaraanta dalkan in joogto ma ahaadeen ya dhibaataad ku wada ay ka jooji weeyaan dadka intiisa badan waan isla garanay dadka wax soo iibsada waan isla garanay dadka wax maamulo waan isla garanay dadka dekada yimaadeen baayac mushtariga fiican waan isla garanay ya marka maanta taas ayaan wadaynaa hadii la yiraahdo maxaan markaa ku soo gabagabeeyaa waan soo gabagabeynayaa su'aalihiin aan u galeynaa hadalku igu dheeraaday waxyaalo badan baa igu aaburnaa oo doonayay inaan iska soo saaro waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye dalkan isaga ah meel dheer buu ku dhacay meel dheer buu ku dhacay inaga ku ridnay ama inaga nafteena ku ridnay ama inaga dad kala caawinayna ayaa ku ridnay ya dad kala caawin markaasaan waliba madaxa taagayna ka waran madaxan taagayna waliba madax taagin nooma yaalo ya inaan hoos u oyno weeyaan aniga judgmentkayga weeyaan hoos u oyno aqalkan soo xidhan hoos u oyno waxaan isku samaynay yaa halkan dalkan gaarsiinay inuu hiigsi yahay qaxootigu iyaan isgaarsiinay hiigsi xaafad waliba leedahay hiigsi waxaan doonayaa
caruurteeda inuu dibadda tago yaa waxaan idin sheegaya anigu halkan waan ka tegey anaa ka tegey halkan yacni taariikhdan kaga tegey meeshan dad adduunyada kale u qabtay waa taariikh u baahan in la qoro anigoo kelina maaha typical weeyaan soomaalidu say ku tagtay madaxayga marnaba may soo gelin markaan tegay anugu meel kale joog kobtanan iyaanu doonaya kusoo noqo dadkuna dhalinyartu berigaa saasay ahayd warqadahan isdhaafinayeen la dhacaya tigidhada dhanka ay marayaan dhakafaar ka qaaday dheeraa muddadu hees ahaa jirtay ma garanaysaan dheeraa muddadu waa nin jaamacad loo diray weeye dheeraa muddadu yacni waktigii 40 sana ku dheeraaday mugta yaa nin wal oo Soomaaliyeed oo meel tagaaba waxa dheeraa muddadu waradan wadankii goormaan ku noqdaa bay imagana maxay noqotay the opposite qaxooti ma tagaa weeyaan qaxooti ma tagaa waxaana inaga isku wacan oo sameynay inaga sameynay wala inaad mid ku dhaamay in dalkan mid ku dhaamo walaad helay oo ka Yurub tagtay maxaad sameeyay hatta dad badan wada taxi wado oo dabeetana habeenkii dadka la soo aado Yurub baan joogay maxaad ku joogtaa xugun joogtay meel kaboolo leeyana wad saxtaa 100 qof saxdaan ya dalka sharaftiisu ay huwanta sharaftiisa waa kan weeyaan kana sharaftiisu qof wal oo Soomaali ma jiro joogo sharafta dalku uu weeyay marka niyo haddaan karaarayna raali ahaada dan karaaray raali ahaada waxaan doonaynaa amnigeena inaan sugno sidaan ku sugi karaa waa inaan ugu jeebkeena gacanta gelino waxaan doonaynaa iskuuladeena inaan dhisno caruurteenu jaamacada galaan yaa jaamacada wax ku oola galaan jaamacada waa iska jaamacad waa jaamacad bay kaliya jaamacad mid jeeweyn tahay mid yar tahay ikaliya caruurteenu jaamacad adduunka la falgali karaan adduunka la tartami karaan anaga beriga iyagii iskuulada laga soo baxo yaa imtixaanada dibadda lagu qaado caruurta Soomaaliyeed top bay ahaan jireen wallahi top bay ahaan jireen yaa maantana waxay nagu qasbaysaa marka la doonayo waxa la shaqo la qodo inaan idhaahno local iyo international dadka loo qaybay laana la tartami kareen baan garanayna maarta yaa wala awal baano waxaan local dad local iyo international ka wada train way ka badanayaan mugto hadii imtixaan la galo interview la galo local labaan kala qaybin nin walo dibadda international advertise gareebay mid local ku jira waxay tilmaamaysaa waa local inuu ka hooseeyo Soomaa ma aqbali karo taa inaan aqbalo ma taasina waxay ku xidhan tahay lacag bay ku xidhan tahay iyo dad determined oo ka go'an tahay inuu dalkan horumariyo marka halkaas aan ku soo gabagabeynayaa hadday waxareen dhowr su'aalood baan ka jawaabi